أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا. السلام عليكم. soo dhawaada barnaamij media. Magacaygu waa Mustafa Cawaale. Soo dhawaada qisada maanta. Wuxuu soo xasuustay Sheekh Maxamed Xasaan sheekada wiilka milyaneerka. Wuxuu yiri weli waan xasuustaa wiilka reer Maghrib kaasoo da'diisu gaarsiisneyd 26 jir. Waxaan ahaa ku faraxsan jeclaadayna booqashooyinkiisa Mareykanka. Mid ka mid ah waxaan ahaa mid ku ooya oohintiisa waxa ay saameyntiisa sujuudiisa oo ku dheeraanayo. booqasho kale ayaan weydiiyay waxaan ku yiri aawe hebel. Waxay yiraahdeen maasha Allah wuxuu noqday milyaneer. Waxaan ku yiri sidee? Waxay iiga sheekeeyeen sheekadiisii. Wuxuu ahaa mid korayay wiishka xarunta caalamiga ganacsiga New York. Waxaa la soo fuulay kuwii soo fuulay gabar Mareykan ah ee xasnaa oo aad u qurux badnayd. Wuxuu istaagay dhinacayga. Manuu soo eegin dhinacayga eegid keliyana. marxalad ka mid ah marxaladihii markii la socday Ilaahay wuxuu qadaray in ay keli isku noqdaan. Waxay uga baqday nafteeda in uu weeraro wiilkani, laakiin manuu eegin eegid keliya. Inkastoo ay aad u fiicnayd ayna qurux badnayd oo ay eegi jireen dadka oo dhami oo la yaabi jireen quruxdeeda saa'idka. Markay gaadhay in ay degtay ayay ku tiri maxaad ii soo eegi weyday anigoo ah xasnaa oo cid kastoo ay aragtaa aan soo jiito. Wuxuu yiri diinteyda baa iga xarintay taas. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. waxay tiri waa diintee taasi. Wuxuu yiri waa islaam. Waxay tiri waa maxay waxaad ka baqayso? Wuxuu yiri waxaan ka baqayaa Ilaaha koonkan. Waxaan ka baqayaa cadaabtiisa aakhiro. waxay tiri maxay idin amraysaa? Wuxuu yiri إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. waxay ka yaabtay gabadhii weerahaas. Waxay tiri waa maxay waxaad leedahay? Wuxuu yiri waa aayad ka mid ah aayadaha Quraanka ka soo degay Ilaahay kuna soo degay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Markay la yaabtay gabadhii aayadihii waxay tiri adigu waxaad ku soo ururisay tusaalooyinkan tusaalahan gaaban ee cajiibka. Markuu doonay inuu dego wiilkii waxay ku tiri maan dhamaysan wada hadalkii. Waxaan rabaa inaan dhamaystirto wada sheekaysigaagii. Wayna la degtay isaga. Waxay ku tiri iiga sheekay diinta kuu diiday inaad soo eegto. Wuxuu uga waramay diinta Islaamka. Marnaba ma eegin eegid keliya. Waxay ku tiri gabadhii waxaan ahay gabadh lacag leh. Waxaan ka dhaxlay dhaxal badan aabahay. Waxaan haystaa shirkado iyo lacag. Shaqaalahaygu waa boqolaal. Miyaad ogolaan inaad guursato? Wuxuu ku yiri ma aqbalayo. Adigu ma tihid muslimad. Waxay tiri islaam ii sheeg maxaan sameeyaa? Anuu ma arag insaan aan ku aamino naftayda iyo lacagtayda adiga mooyee. Wuxuu yiri soo maydho oo kaale xarunta Islaamka New York si aad u qirato. لتشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. way tagtay isla maalintii kadib waxay ku dhawaaqday shahaadadii. Isla habeenkii uu la fadhiistay imaamkii masaajidka wiilkii taqiga ahaa iyo gabadhii iyadoo oo ku qortay dhammaan wixii ay haysatay oo ay tiri waxaan kugu aaminay naftayda adigoon ku garanayn. sideen kugu aaminin adigoon ku garanayo? ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.